labaad mahad u soo jeedinayaa dhaqaatiirta waqtigooda qaaliga ah ku soo baxshay inay kala qayb qaataan bulshadaas horumarka higsanaysa dhageystaanna qodobada iyo maaragtay waxyaabaha hadafka ay leeyihiin waxaan haddaan guda gala arrinta dhalinyarada ka soo jeeda degmada Baxdo ku midaysan magaca la yiraahdo BYL waxay gogol dhig u yihiin ama maaragtay waxay gogol dhig u yihiin sidii maaragtay arrimaha hadda muuqda ay ka arkayseen dhalada ay ku suurto galeen waxaadna dareemi kartiin bulsho haddii la damco in la hormariyo in ayaga laftirkooda laga dhaadhiciyo horumarku waxa uu yahay ururkan BYL wuxuu soo shaqaynayay muddo ilaa 6 sano 7 sano ah 3 sano ugu yaraan wuxuu ku mashquulsanaa dadka maskax ahaan xoogaa in laga dhiso oo maskaxdooda la geliyo horta in horumarka maqan yahay sababtoo maanta waa dareemi kartiin wadanku si guud markuu u burburay kadib waxaa sii burburay deegaanada kale ku tiirsanaa waxaa haddana kobcay deegaamo badan oo bulsho ay ku nooshahay degmada Baxdo waxay ka mid tahay deegaamada 20 iyo dhowrkii sano oo wadanku burburka ku jiray maaragtay xagga bulshada ka hormartay oo dad maaragtay ama deegaanku u ballaartay ama dadku ay bateen waxaa hoos yimaada in ka badan 50 tuulo oon lahayn haba yaraatee wax adeega oo markii laga reebo biyaha oo si cariiri ugu taga oo wadooyinka qaar loo maraa ay dhib badan yihiin caafimaad iyo meel ay ku soo hirtaanna waxaa u dadkaas masaafo dhan 90 kiiloomitir waxaa u magaalada Baxdo waa dareemi kartiin marka qofka 90 kiiloomitir ka yimid oo degmadan Baxdo ku soo hirtay oo meel kale aysan u sii dhaweyn ama 100 kiiloomitir oo kale ay u sii jirto haddii meeshaas waxa uu u baahan yahay uusan ka helin culayska uu la kulmi karo waa ogtihiin marka maadaama dadkan dhalinyarada deegaanka ay ka soo jeedaan yihiin dadkii dugsiyada quraanka ka soo baxay oo deegaankaas kadibna magaalada yimid waxay suurto galiyeen oo ka tashadeen oo ayagu ka fariisteen wax aan inay dadka ku taraan ay ka yimaadeen muddo badan ka bacdi waxaa suurto galay dadkii in la wacyi geliyo in loo sheego waxa ka maqan meesha loo raadiyo in ayaga gudahooda midnimada ay u baahan yihiin laga shaqeeyo waxaa lagu guuleystay dadka degmada Baxdo iyo deegaanada hoos yimaada in la isfahansiiyo ayaga inay u dhaqaaqaan wadada horumarka waxaad ogtihiin ama dareemi kartiin hal saldhig marka la dhisi tago ama hal xarun la dhisi tago waxa ay u baahan tahay dhammaan waxay u soo dhabar adeegeen waxa ay u baahneed maanta waxa la marayaa waqti isbitaal la dhiso waxa la soo dhisay xarumo ka horeeyay waxa dhiman maaragtay kuwa asaga ka dambeey doona laakiin maanta baahida ugu weyn oo degmadii ka socota waa xarun caafimaad waxay gaartay meesha ugu hooseyda waxay ka gaartay adeega caafimaadka xarun waxa ku taala oo laga sameeyay sanadiyadii la soo dhaafay maaragtay amshayda xaruntaasu waxay caawin kartaa aad ay u yarta waxa marka mahuraan noqotay waqtiyada kulaylku yimaado waqtiyada ama la helo xataa taqaatiirta qaar rag baa deegaanka tagay qofku markuu degmada tago meel uu ku shaqeeyo iyo meel uu fariistaa duusan lahayn waxay sabab u noqotay inuusan bulshadii waxba u tari karin marka bulshadaas waxa hadda dadaal ugu jiraan isbitaalka aad aragteen oo meeshan ku yaala sidii loo soo gabangabeeyay walaalahana dhaqaatiirta maaragtay magaca kula bulshada dhexdeeda waxaan ugu baahanay oo baahida ugu weyn oo hadda aan isugu keenno waxay ahayd in lagu jiro mowduuci ayagu ay bulshada qaybtooda ku hogaami lahaayeen maadaama bulshadu waxyaabo kala duwan ay baratay qof kasta waxa baahida loo qabo ay sii badataa markii la dul taagan yahay wixii asoo bulshada uu ku matali lahaa maanta marka waxaan dul taaganahay oo miiska noo saaran xarunta aad aragteen oo weygaaran oo isbitaal oo wax kale oo aan u maqan jirin markii maaragtay bulshadaas dadka u dhashay laga reebay ummadda muslimiinta wax ku tari karta waxaan rabnaa marka waxa la hadaan wada dhalad walaalo isjecel wadaanta u sidin warwareegay haddaan ummadda maaragtay midnimadeeda iyo ka shaqaynteeda dadka marka abaabulka wada aan lagu gacan siin oo qof kasta qofkii Ilaahay maal siiyay uu Soomaaliya ku gacan siin qofkii waqti huri karaan uu san waqtiga ku bixin maaragtay waxa meeshaas imaanaysa culays aan bulshada wax wada qaadi karin marka waxaan si gaar ah ugu sii mahad celinaynaa ganacsatada ka soo jeeda deegaanka oo degmada ka soo jeeda waxay u soo dhabar adeegeen bugdhidna u ahaayeen waxyaabaha la soo qabto dhan inay qabsoomaan waana dadka ugu horeeyay oo juhdi dhaqaale ku baxshay ka bacdina maaragtay ilaa hadda u taagan inay maaragtay fikradahaas iyo qorshaha dhalinyaradu soo baldhigtay ay maal galiyaan marka qof kasta hadaan culays kaas haysta lagala qayb qaadan oo bulshada la dhex keenaa maalinba dad ku soo biirin hadda asaguna inta daalo meeshiisa uga tagaya waxaan marka cod dheer ku leenahay degmadaasu baahida ay qabto
qofkii tagana wuu soo arkay qofkii maqlana wuu maqlay heerar waxay kala gaartay maaragtay dad bini aadanuhu kulley mashaakilaad iyo xaalado la soo darsay ay naftooda u gooyaan oo maaragtay ayuu isqatalaan waxaadna dareemi kartiin haddii qofkii hadda wax caawinaya ilaahay subxaana qaadirka ahaa ummaddiisa wuxuu faray in la isku gargaaro haddii gargaar la waayo oo qofku wax shaydaanka ama ka wehliyo uu waayo uga gargaara ama adeega uu u baahan yahaba u fududeeya maaragtay bulshadu ma kala geesisana qofba maalinu maaragtay xarigga inta geed surtuu meesha isku daldalaya marka walaalayaalow waxaan codsi u nahay degmadaas ololaha ka socda qof kasta wixii aan usoo bandhignay oo aan uga baahannahay maaragtay isagoo u tixgelinaya arrimahaas inay yihiin arrimo maaragtay uu ajar ka helayo arrimo maaragtay baahideedii ay taagan tahay arrimo maanta meesha ugu baahida badan aan u aragno oo maanta degmada baxdo cadaada waxay u jirtaa 100 kilomitir ayadana waxaa ku sii jira deegaano kala 100 kilomitir u sii jira qofka halka 100 kilomitir caafimaad ama maaragtay inta wax ku dhacaan la keenay uma sahlana inuu haddana 100 kilomitir oo kale sii guureeyo oo qarash ahaanna ma awoodo wada ahaanna way ku culusta marka meeshaas qofkii tagay wuxuu soo dareemay waxa yaala qofkii aan taginna codka maaragtay waxaan muuqaalka iyo sawirada iyo hadalka isugu darayna inay qalbigiisa si fiican u saamaydo halka culayska ka jira marka waxaan maaragtay dadka iga dambeeya kulley sharaxi doona waxa aan u baahannahay oo si aad ugu baahannahay walaalaha maanta taqaatiirta aan ku casubno meeshaan inay maaragtay meel say xagan karaan iyo meeshay wax noogu raadi karaan iyo ayaga laftirkooduba maaragtay wixii ay dadka u awoodaan arrinkan hormuudkii loo rabay ay u noqdaan marka waana mahadsantihiin mar labaad aadaan idin salaam waqtiga ay ku qaadanayso iyo dhibaatada uu la kulmayo aabbaha maalan xaaskiisu ay foolatay ee dhali weysay inuu soo gaarsiiyo meel ay ku dhashay inay soo gaarin ay u badan tahay dhulkaas oo kale waxaa lagu mathalaa fikir la yiraahdo fikirkii barafka biyaha lagu riday oo wuxuu yahay bakeeriga halkaa yaalla haddaad baraf ku dhex riddo barafka inta badan wuxuu dhex galahayaa bakeeriga biyaha laakiin food yar u koraysaa ka muuqata cudurrada waxaa lagu mithaalaa kuwa xarumaha caafimaadka isbitaalada soo gaara inta yaroo muuqata waa inta aan muuqanoo koobka ku dhex jirta barafka oo kale cudurradii ayaa bulshadii dhexdeeda ku jirta dadkii u baaba'ayaan aysan soo gaarin xarun caafimaad dhakhtarna aysan arkin waa meeshii dhakhtar la heli karay iyo isbitaal meeshaan la heli karin waa kasii daranta marka inta muuqata oo la arko tuulooyinka iyo magaalooyinka la soo gaarsiiyey waxaa ka tiro badan inta ayagoon soo gaarin ku baaba'a guryihii iyo ay deganaayeen iyo baadiyihii iyo meelahay ku jireen dadka qaarkood dadka waxaa xukumaa dhulkaas jooga xoolahay waxay la raadiyaan meel daaq leh meeshii daaqa xoolaha uu kala raadiyey waxaa laga yaabaa inaan baabuurba geli karin haween foolanaysana yaa soo qaadi karan dhabarka ma ku soo qaadi karaa ninka waa maya haddii rati kusoo qaado rati ma saari karo runtii marka dhib aada u culus oo xagga caafimaadka dhulkaas ka jira iyo deegaankaas dadka deegaankana intooda badan diyaar garowga iyo fahamka xoogaa waa ku xadidan yihiin waxay mashquul ku yihiin in xoolahaas ilaalintooda iyo wixii la midka ah in maalan wadaaddu markii ay soo bilo dhaweyso oo kale uu iska fogeeyo oo meel isbitaal uu ku dhaweeyo oo kale maaragtay ma keeni karo oo hawshii guriga iyo carruurtii yaa looga baahan yahay kolleyba laakiin waa fikir lagu sii fakari lahaa oo wax la xallin lahaa baabuurta oo kale khaasatan kuwa dadka jiran qaadi kara in deegaankii oo kale lagu badiyo oo maaragtay dadka soo qaadaan oo kale runtii ayadana waxa aada loogu baahan yahay oo maaragtay fududayn kara transportationka shayga kaleo muhiimkaa inaan ogaana ay tahay waxaa waaye dhulka saas u kala fog meel walba isbitaal lagama samayn karo oo bahalka isbitaal ahaa waa qaali hadda raggii bilaabaa ka sheekayn doona haddii ilahayd anagu caafimaad ahaan dhaqaatiirna isbitaal soo dhisi jirnina waa naqaanaa bahalka isbitaal la yidhaahdaa aada u qaali u yahay ma sahlana weliba dhismihiisa waxaa ka cajiibsan dhismaha iyo qalabayntu labaduba aada u sahlan yihiin waxaa ka cajiibsan oo ka dhib badan waa waditaankiisa in la wado hadda ka hor isbitaalaan xareero ka dhisnay hay-adaan ba dhistay waa la wadi jiray hay-addii dhaqaalaha bixin jirtay maalintii dambe waxay yihahdeen waa naga bis annaga wax dambean u hayna male odayaashaan isugu yarna waxaan war nimanka isbitaalka waa ka tageen isbitaalku deegaanka soo ma anficin haa seen ku wadi karnaa cabaar maraa sheekeynaa odayaasha ugu caqilsanaa intay iisoo dhawaado u yihi maandhow bishii waa qalabaysan yahay isbitaalkaas wax walbaa yaalla shaqaalihii tababaranaa jooga cid walbaa joogta dhaqaatiirtii aad joogto waxay dhaheen maandhow bishii baaqa ku baxda marka waxaan idhi $30,000
markaas baanu nagu ciyaaraysaa mase waa run waxaa ku yidhi waa run cayaar ma aha $30,000 bishii ku baxda markii la yareeyo waxa ugu yar oo bishii lagu wadi karaa waa $30,000 weligeyba ma arag 30 kun oo isku xiran aguu u leexday marka adigu haddii la dadaalo waxbaa la qaban karaa isbitaalka ilaa hadda waa furan yahay waa shaqeeyaa waagaas waxyaabaha isugu aadinay iyo ku shaqeeyaa marka dadaal haddii la helo wax badanaa la qaban karaa annaga dhakhaatiirta aan usoo laabano oo maanta meesha ay ahayd muhiimaddu annagu insha allah wax alla wixii aan qaban karno oo tabarteena diyaaraan lanahay dadkeena iyo deegaankeena wixii aan ka qaban karno dadka qaarkood markii la weydiiyo la yidhaahdo deegaan hebel oo dhulka ka tirsan waxa laga qabto fikir la soo qaadaa jiro oo runtii anigu aanan jeclaysan waan idinla wadaagahaya dadka oo dhan ha maqleen fikirkaas wuxuu yahay tuulooyinka laga soo jeeda oo maaragtay cidda salaamankood deganta waa badan yihiin waa kala nuuc ama magaalooyinka markii mid la soo qaado qofku inuu yidhaahdo middan maxaa wax looga qabana aniga mid heblan ka soo jeeda ma wax laga qabto fikirkaas waa qaldan yahay wuxuuna ku qaldan yahay markaan inta isu tagna marba meel wax ka qabanaa wax qaban karnaa laakiin haddii la yidhahdo afarba meel ha istaagto yani waxba ma qaban karaan wax weyna ma keeni karaan marka in hadba magaalo loo gudmado sida baahida u kala culus tahay sida magaalooyinku u kala waawen yihiin oo hadba meel loo gurmado oo wixii laga qaban kara laga qabto oo awoodda loo jiheeyo oo ciddii la kaalmaysan kara lala kaalmaysa fikirkaasaan uu soo dhaweynayaa laakiin aniga magaaladan kasoo jeeda haddaan wax laga qaban meel kale wax igama gelin fikirka dadka dhaha dad badanoo meelo shirara iyo facebookyada media social media ay kusoo qorayaan arkay dhaqankaas dhaqan fiican ma ah marka maanta hadda baxdaa noo taala annaga dhakhaatiir ahaan insha allah ninkii idiidan oo dhakhaatiirta asaga sheegi doona laakiin magaca dhakhaatiirta halkaan fadhida anoo ku hadlaya og inaansan idiidaynin annagoo awoodeenna intii ugu badan oo wax ka qaban karno diyaaraan lanahay insha allah haddii ilaah idmo dhakhaatiirta waxaan la dhahaa waa lacagay haystaan laakiin dhakhaatiirta waa xamaalata waay nimanka guryaha dhisoo kale waay marka wixii naga go-ah insha allah oo aan bixin karno waa bixinaynaa waxqabad ahaan iyo tegid iyo meeshii wixii laga qaban karana waa imaan doontaa haddii ilaahay idmo waxaan rabaa tala inaan idinku kordhiyo isbitaalka dhismihiisa kolleyba anigu ma aanan si fiican uma fiirin dhalinyaradu mar waa ay tuseen laakiin si fiican uma aanan fiirin waxaan rabaa inaan idinku kordhiyo meeshaas in ay jidad fiican lahaato waa shardi jidad fiican oo laga soo geli karo oo dhinac walba ka mara inay leedahay waa muhiim magaalada hadda waa koraysaa way socon doontaa inaan waddooyinka laga degin oo waddada asaasiga ah oo dhaawacyo hadday dhacaan ama haddii ay umulu dhacdo ama emergency caafimaad oo dhaco waddooyinka lagu keeno inaan waddooyinku xirmin waa aragteen hadda isbitaalka Cadaado meesha laga soo wareega markii loo soo wado xilliga dowladda ay dhacaysay laamiga waxba kama xigin kadib laamiga laga degay dariiqii oo dhan laga xiray marka waxay noqotay in xaafado dhexda laga soo wareego marka ka ilaaliya inaan dariiqyada laga degin oo dariiqa maaragtay weyn oo laga soo leexdo iyo asaga inaan wuxuu dhaxmid ku dadaala midda kale oo muhiimka la rabo inaan ku dadaashaan waxaa waaye raggii iga horreeyey oo sheekh cabdullahi ku jirana waa sheegeen weel weyna ilaahay lagu baryaa marka hadda inta aad soo wareejiseen maahane ka badiya dhulka u dhow oo dhan waan dareemay inuu meel magaalada xoogaa geesa ka jiro oo weli dhul bannaan la heli karo dhulka u dhow oo dhan ha loo qabto asaga ha loo leeleeyo dhul reserva u ah oo mustaqbalka haddii ilaahayba lagu koriyo ha loo diyaariyo annaga waxaan dhahnaa isbitaalka xoogaa inuu isbitaal fiican yahay deegaan intaas lagu qumi karo uu yahay oo kale waa ugu yaraan 1,000 lagu dhifta 1,000 inuu noqdo boqol lagu dhiftay boqolaa idinla weyneed adinka marka waa inuu 1,000 lagu dhiftay 1,000 inuu noqdo waa marka qasabna maaha dhulka inuu wada dhisan yahay yaa siligoo yar iyo waxaa inta lagu wareejiyo maaragtay geeda iyo la isaga berbeeri karaa hadba intii loo baahda mustaqbalka cudurrada qaarkood cudurrada faafo kale noocyo ka mid ah dadka waalidaah oo kale waxyaaba badana imaan kara kuwaasoo kale meelo geesiyaha la xajiya marka dhulka haddaad isku yarayso yani wax badan ma qabsan kartid marka intaan yaraa maanta nugu firan ha dhehnina sheekh cabdullahi xilliga uu ka dhawaajiyo hal tuula ka dhisneed magaalada ku taala iyo maanta waa ujeedaa isbeddelka ku dhacay iyo populationka ku xiran iyo dadka ku xiran marka wuxuu anaga kaliya maahane waxaa waa jiilal kalea naga dambeyn doona haddii ilahay idmo insha allah marka in aada maaragtay loo wanaajiyo waxaan rabaa marka in aan dhakhaatiirta kale u ogolaado insha allah inay hadlaan dhowr sannadood ka hor ayaan aniga doctor Tahliil tagnay Cadaado iga haray markaa uu idiray wuxuu yidhi orod baxda soo fiiri maalin aan meesha soo joogo marka 24 saac habeen aan tagnay galabtii aan ka soo tagnay adiga 12 saac bar meelaha waxaana la ku dejiyey meel MCH ah oo aan ku qiyaasayo 6 qol inay ka dhisnayd markaa dadka maalinkaa noo yimid
dad ku dhowaad 200 oo qof ayaa noo yimid marka meesha ciriiri xoog leh markii uu ka dhacay nin waardiyaa markii duhurka loo baxay aan weydiyo waxaan idhi meeshan yarta ayaa idin dhisay xad meel weyn u dhiso wadeen markaasuu yidhi dumarka magaalada ayaaba intaan noo dhisay wax rag ay ku darsadeen haba yaraatee meesha maba yaalinba waa la si kaftan waxaan aawar raggii marka haddii dumarkii ay 6 qol dhiseen raggii xagee ka baxeen markaasuu yidhi ayagaaba laga laaluushayba in intaan la dhiso qayb ka mid ahaba lacag la siiyey oo mataqaanaa intay kula dhegeen dumarkii ay lacag ka dhigeen marka cusbitaal 100 lagu dhuftay 100 doctor tahliilow yuusan kula yaraanin dadku meeshaasay ka yimaadeen 6 qolay mataqaanaa dumarku raggii ka soo fujiyaan hadday maanta raggii intay istaageen ay leeyihiin war annagu intaanan qabsanay waxa nala kugu daro reebaxdo waxaan isleeyahay isbeddel weyn ah 4 sano la soo dhaafay ku dhacay waa wax mataqaanaa runtii aan bogaadinayo aniga saraxatan ka dhaqaatiir ahaan waxaan cod dheer ku taageerayaa hadalkii doctor tahliil waxba ma hakra doono inta awoodeen ay tahay hadday aqoon noqoto tala bixin hadday noqoto inaan maalkeenna wax ka dhiibno hadday noqoto inaan waqtigeenna wax ka bixino intaba mataqaanaa diyaaran u nahay anoo codka dhaqaatiirta mataqaanaa ku hadlaya rajaduna aaday u fiican tahay doctor tahliil waa iga khibrad badan yahay khayr allah siiyo maalinkii aan tegaynay Cadaado ee 9 maalmood aan soo joognay aniga iima muuqanin fursad meeshaas wax looga qaban karo saraxatan laakiin isagu wuxuu aad iyo aad ugu adkaa meeshaan khayr badan inuu ku jiro cusbitaalkaani inuu dib u noolaanayo sababta cusbitaalka Cadaado waqtigaas isaga ah waxaa lagu tilmaami karaa gelgelin inuu yahay meel xooluhu mataqaantay maalinkii yimaadaan ay ka hooyadaan oo kaleeto cusbitaal meel lagu tilmaami kara muusan ahayn waxaan maankayga ka bi'in oo weli ku soo dhaca oo doctor tahliil uu ka warqabaa gabar fooshu ku adkaatay oo guriceel rabay in loo qaado laga soo celiyey amaan ahaan habeenkii diyaaraddu naga baaqatay subax diyaaraddu naga baaqatay habeenkeedii qalliinay u baahatay wax lagu qalaan weynay surgeon nala socdo dhakhtar qalliina doctor tahliil fikrad wuxuu yidhi war toobaas fiican noo soo qabto qofkaan inay badbaadaan muhiim ah inaan raacno dariiqii saxda ah muhiim ah qofkaan inuu badbaado cunuga banaanka la keeno habartuna ay badbaado unbaa muhiimadu tahay marka sakiin toobaasa noo soo qabta asagaa suuxiyo ka ahaa cunugii ii dhiibeen markii mataqaana banaanka la soo dhigay alxamdulillah gabadhiina way caafimaad qabtaa cunugiina waa caafimaad qaba markii ugu dambeysay maantana cusbitaalkii waa cusbitaal lagu soo hirto oo mataqaanaa runtii deegaano ka fog meesha iyada ahayd Cadaado ka fog mataqaanaa looga yimaado waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid ah oo 9 maalmood ka mid ah in subaxii markaan shaqo tagnay reer Cadaado ay yiraahdeen xoogaa ammaan daraa jirtay maanta jooga guryihiina yacni meeluhu dhibku waa soo wada mareen laakiin maanta haddii fikirku uu taagan yahay in bulshadii intay baraarugtay ayagu ay maalkoodii mataqaanaa ku bixiyaan meesha wixii ayaga horumarkooda ah oo cusbitaaladii meelihii mataqaanaa xabsiyadii meelihii mataqaanaa maamulku ku shaqayn lahaa wixii oo dhan intay sameeyeen ayuu ileen intaana naga dhiman meel fiican oo lagu taageeri karaa joogtaan reer baxdo waxa weeyaan mataqaanaa hadalka ku dheeraan maayo wixii annaga awoodeena ka dhaqaatiir ahaan waa ka qayb qaadanaynaa maal ahaanna uga qayb qaadanaynaa waqti ahaanna uga qayb qaadanaynaa maskax ahaanna waa uga qayb qaadan doonaa waana mahadsantihiin ama waajibaadna saarnaa ay naga rideen Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii gurigaaga kaa soora waa rag dheh guri kale ninkii kaa soona rakarooni yacni waa arrin ama culays ama fikir la rabay inaan dhakhaatiirtu ay bilaabaan oo hawshoodii ay tahay maadaama meesha xarun caafimaad ay tahay marka aadaan ugu bogaadinayaa khaasatan Sheekh Cabdullaahi oo la ii sheegay inuu Sheekh Cabdullaahi warsame dadkii gundhiga u ahaa arrintan inuu yahay aniga run ahaantii mar laga joogo 3 bilood waxaan ku arkay social media-da laakiin Sheekh Cabdullaahi annagoon weligan maanta ka hor is arkin waxaan isku barannay social media-da aan isku barannay taleefankii meesha ku qornaa aan kala xiriir muddo ka badan 15 daqiiqo aan wada hadlaynay anigoon isu sheegay inaan dhakhaatiirta ka mid ahay ama aan dhakhtar faahinahay laakiin is waraysanay si dhiiba hoose oo kuna dhiirigeliya arrintaas
يعني inay ka miro dhaliyaan aan garab taagannahay haddii aan nahay yani ama dadka bulshada ee famil ka soo jeeda ee ku baxda ee ku nool Muqdisho si fiican aan u sheekaysanay arrintaasna waxaan inaan garab taagannahay aan u sheegay waa markii bilowgii hore aasaaskii hore la bilaabay on social media ku aan ku arkay aad baan ugu farxay ina dhiirigelisay laana sida baahida dhaqaatiirtu ay sheegeen oo meesha taalaan aniga ogaa waxa baxda waxa igu dambeysay mar laga joogo umaleena sambil ilaa 6 mar 5 mar ilaa 6 marna waa tagay inkastoo aan xagga u sii dhaafin ilaa dhulkaas harar dheer iyo hobiyo ceeloori aan weligii camaara aan weligii aan taginin meesha igu sareysan 90 kilometerkaas away from cadaada ay tahay oo baxda ay tahay waxaan jeclaa mar kastoo aan tago cadaada aan tago inaan baxda la mooganin inaan baxda cadaada laga soo laabanin marka aad baan ugu faraxsanahay nuqdada kale ay dhaqaatiirtu ka dhawaajiyeen annaga dhaqaatiirteena haddii hal nin uu hadlo ninkaasaan ku go-onna sida dhaqaatiirtu doctor tahliil khayr alla badana laa siiyo oo nin deegaanka aada uga warqaba ah dhaqaatiirtana isku xira ragga noogu siina yarsan arrimahan oo kalena hormuudka nooga uu yahay sida uu sheegaan ku waafaqsannahay kuna raacsannahay arrintaana aad baan u taageeraynaa fikir ahaan iyo maskax ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxaan jeclaan lahayn in laga miro dhaliyo oo sida hadda aniga ii muuqata hididiilo wanaagsan baa ii muuqata oo bulshada ama beeshan reer xaaji salaabaan la yiraahdo sida aan la soconno waxaa la dhameeyey oo hadda magaalada Ducoley la yiraahdo muddo hal sano ka hor laga joogo ama 2 sano ku sii dhawaad arrimaha hadda reer baxda ay bilaabeen isbitaal haday ahaan lahayd gurigii degmada booliiskii iskuulkii ani waxyaalahaas oo kale maadaama aan aad u xiiseeyo waxaan jeclaa inaan la socdo adag kibarna waxaa laga bilaabay mar 2 isbuuc ka hor laga joogo camaarana isbitaalku wuxuu u marayaa kala bar marka anigoon lahayn yani xoogeen hal kala qaybiyo taageersan fikirkii doctor tahliil isbitaalka ugu macquulsan uguna weyn aadna noo soo jiiday maadaama ay reebaxda bilaabeen waxaan jeclaan lahaa in midkan xoogga la saaro laakiin qaladaadkii hore u soo dhacay in laga faa'iideysto waxaan dareemayaa isbitaalka ee Ducoley inuusan weli shaqo bilaabin oo hawlgab u yahay isbitaalkan sidaan cimlaaqan u ah oo design-kan leh haddii inta la taago aan lagu shaqaynin weli gabdhihii carruurta ay bannaan ku dhimanayaan ayadana waa dhibaatadeeda marka sidii toorkuba uu sheegay isbitaalka shaqaysiintiisa in laga shaqaalaysiiyo oo isbitaalku uu shaqeeyo waxay ka muhiimsan tahay design-kan iyo isbitaalkan weyn iyo kuwo kaloo kasii waaweynba sida haddaba aan u malaynaa inay reer Ducoley ay ku dhacday waa mahadsantihiin aad baa idinkaga mahadcelin arrintan ka sugin dad dibadda nooga imaanaya iyo nin shisheeye nin gaal ah ka sugin waana dhiirigelinaa waxaan diyaar u nahay anaga ka dhalinyar ahaan xooggeena caqligeena iyo maalkeena inaan gelino insha allah waana soo dhaweynaynaa insha allah asalaamu calaykum waliba inta maaragta ii sheeg uu haysto inuu linafci lcibaad u isticmaalo bini aadanka kale inuu anfaco maxaa ugu wanaagsan dadka kuwa u isticmaala maaragta qof kasta inay ka fekerto raalli ahaashada rabbi say ku gaartaa maalka oo kale baa la yidhi maalku asaga daatadiisa uma ceebaysna baa la yidhi wuxuu rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna rabbi wuxuu ka iibsaday mu'miniinta naftooda iyo maalkooda inuu janno siiyo ayuu uga iibsaday nafti iyo maalkiia looga iibsaday dhinaca kalena rabbi wuxuu subxaanahu wa tacaala inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim maalkiinu iyo awlaadiinuba fitna idin yihiin waa maxaa waxaa li maalka haddii sida alle ka raaliyahay loo isticmaalo wuxuu sababku ugu noqonayaa jannadu sababku ugu noqonayaa haddaan loo isticmaalin sida alle raalli ka yahayna wuxuu noqonayaa mid fitnaahu noqonaya aakhire dhib soo jiida marka tawfiiq allahna waafajiyo waqtigu aad noogu cariiriya waxaan maaragta ii sheeg wacdiga intaasaan kusoo gaabaynayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa dhaqaatiirta maaragta waqtigooda qaaliga maanta maaragta noo ogolaatay oo nala soo qayb gashay oo meesha maaragta nagala soo qayb gashay aad iyo aadaan ugu maaragta mahad celinaynaa insha allahu tacaala wakadalika walaalayaal waxaa la aroor maalintii dhammaysay maadaama la yimid insha allahu tacaala waqtiguna maaragta wuu koobnaad qadadiya waqti badan qaadatay hadda warkii waa la bilaabay inaan maanta iska dul qaadanno insha allahu tacaala maanta un baan maaragta ii sheeg danaan dan loo daynina dan maahan baa la yidhi waana wada danteenna insha allahu tacaala intaas idinka codsanaya idinkuma dheeraynaya wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu marka walaalayaal ilaahay waaxid ahaa aan meeshaan isugu kaayo keenay isagaan u shukrinaynaa shukriga lama koobi karo
ilaahay wuxuu leeyahay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa haddaad tiri tegtaan nicmada ilaahay korkeenna uu saaray ma koobi kartaan sadaqa allaahu alcadiim waana run taas walaalayaal culimmadii hore oo hadashay wax ka fiican anigu ma sheegayo hase ahaatee anigu waa idinka dhallin weynaa kulligiin qof igu dhalima lama arko meesha ilaahay waxaan ugu shukrinaynaa dadka isugu yimid meeshan oo dhaqaatiirtu u badan tahay oo qaasha ah oo waqtigoodii noo soo horay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ka mid ahay dadkii baxdo haddii alla koraya joogi jiray 63 aa gurigii u horreeyey laga taagay gurina maahayna wuxuu ahaa sabansabdho iyo biro la taagay oo korka ciid laga saaray waxa dhibaato ay soo martay baxdo haddaan ka sheekay tago qoraxdaa noo dhacayda kase sheekay ma hadda meelo yaroon taabad saa way iska jiraan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hadda waxaa ku taal 3 matoor oo la cabo waxaa ku yaal 11 masaajid waxaa kaloo ku yaal 21 dugsi quraan waxaa kaloo ku yaal 2 dugsi oo haddii alla kore anigu ma ahi haddii alla iskooleeyahay kuwa maxkamadda ka hooseeya haa maxkamaddii waxaa ka maqan jaamacaddii ka maqan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin teer iyo markaas anigu waa soo jeedi waana ku noolaa keligeed inkastoonan ku noolayn oo meelo kale iyo aan jiray dadkii dhisay oo meeshaas dhisay anigaa ka nool qof kale oo ka nool dadkii dhisay ma jirin haddeer nalcadaasi ku sugan tahay waxa ay dhibaato soo martay lama xisaabi karo 2 matoor u horreeyay markii la qodayay waxaan joogay ceeb ha ahaatee ceeshi xumeedo la cabcabi jiray aan habeen soo aadi wadaamihii waxaa soo raacay xaar cabidna lagama dayn cabid dhibaatada ay soo martay ka mid ahayd aniga iyo nin la yidhaha xasan xirsi axmed radiyallaahu canhu ilaahay ka raadle oo dhintay waxaan qaadnay xariggii lagu cabi jiray xariggaas wuxuu jeedaa 2 isku guntan weeye saas markii la yidhaha hal baacaa la yidhaha hal baac 24 ku dhufo baacaas 24 lagu dhufay xariggaasu intaasu jeeda waxa laga keenayana dad ma cabi karin waxaan qaadnay ceel xaraara inta tagnay jaqantidii maanta geelu cabay oo kaadidii uu ku daray aanan inta 100 shilin siiyey aan iri aroortii ii soo dhur korka ka soo dhur korkuu ka soo dhuray caagii haddii alla ku garab dheerka la dhihi jiray soo buuxiyey subaxiyaan dhusama reebgeyn waxaan ka ballaynay guddoomiyihii gobolka waxaan nidhi biyahan cabnaa waa kuwan xarigga lagu caboona waa kan xariggii inta nin shaqaalaa u dhiibay uu yidhi kala bix wuxuu tegey meesha aan idiin sheegayo 24 baac biyihiina waa kuwaanaan nidhi biyaha barakaadiya ii dhiibuu yidhi sacabkaan ugu shubay sacabka markaan ugu shubay oo uu fuuq yidhi uu afka labadii yeeray biyo kalaa loo keenay waa ku luqluqday wuxuu wacay kuwii madaxda ahaa oo militarigii iyo baliiskii iyo haddii alla ku rashan nin uu wacay 5 nin markuu wacay uu yidhi bal biyahan dhedhanshi nin waliba sacabkaa loogu shubay markii dambe waxay gaartay caaggii kala baruu tegey sidii nin mar loogu shubaayey
biyo kalena waa lasoo agdhigo lagu luqluqaayo waxaa nala ku dare nin shiinaa aa nala ku dare oo lagu sheegayo haddii alla kuu rooya inuu yahay maaragtay nin madax annagu waa naga baabuur iyo lebis iyo waxaa ninkaas nin barfasoor oo lagu sheegayo dib arkaan markaan meel sii marayno uu kaadi isku taagay markaasuu dhexda ka furay xarig dabar geela go-is aasuun u ah dabar geela aasuun u ah markuu tegey waxaan tusnay markii hore 40 qof oo qufacayda oo maal tufayda oo geed hoostiis yaal dadkii markuu arkay ceeshiina uu arkay uu wuxuu tegey meel bannaan oo fog magaaladuna ma dhisnayn markaas qara anagu aan dhuusa mareeb ka soo qaataan mid ugu geeyey wuxuu qoray waliina waayo sunay cabaanu qoray sunay cabaanu qoray ceelkana loo keenay markii hore ugu horreeyay xuseen kulmiye ku soo dhacday marka xuseen kulmiye ceelka annaga naloo keenay caliyaalu qoday shishadeeda markaasuu yidhi inta siibto habeen dambe baxda tag matoorada u horreeyey saasay ku noqdeen dowladna waxaa noogu dambeeyey tii maxamed siyaad barre wuxuu yeelayaa goday qodeen ceel wahaba aan halku xabisi jiray ceelkaas markii aan laga bixi karin lagama bixi karo xarig in lagu bixiyo maahane odayaasha lagu xabisi jiray wax ay noo xabisayeen iyo waxaan dhibnana lama arko kolba haddii la ku lacagay rabaa annaguna lacag ma haysano bahallada socda oo haddii alku doorshaanka iyo haraanka iyo ilaa ceelka uma jeedaan waa ku soo dhacaan asay noogu soo dhacaan meesha wuxuu afka ka saareen oo dheer oo xanana ceelka qurac badan aan ku taale ay afka ka saareen kaasaa waardiyan noo ah subaxii naga daldali jiray habeenkiina waa ku hoyay jirin horta dhibaatooyinka aan soo marnay wax la koobi kara maaha alxamdu lilaahi rabbil caalamiin maanta waa la yaabanahay hawshaan anigu hadda waana ilaahay namcadi waxaan la yaabanahay wax kale maaha intaan oo ka kooban reer xaaji saleemaan oo dhakhtar leh oo dhalinyaro leh oo culummo leh inta maanta isku keentay wax weyn oo lagu shukriyo waayo kumi haddaanan ka qaadin wax weyn oo lagu shukriyo waayo 3 dhabbaa soo gasha 3daas dhab isku ratiya loo haddii alkura loo jecsama jiray isku ratid carre leeyahay okay 3 dhabbe aan ku falno الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين aeroboorkiina waa calaamaysan yahay gurigiina waa aragteen soo maahan dadka baxdo webi iyo bad iyo beer orgigaa u ahaay orgigiina wuxuu ku lumid abaartii mid hadda dhashaa ugu sokeeya orgi haddeer u dhalay soo maahan wixii ay qaban kareenna waa qabteen stationkii waa dhammaaday stationkii waa dhammaaday guriga hadda la dhisaayo oo isbitaalka ah anigu masaajid waa ka horeeyaa malihi waa la midna malihi laakiin waxaan leeyahay markii masaajid laga reebo lambarka ku xiga inuu yahay ilaahay xaggi markii la fiirsho qur-aankaana u daliila waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiica nimankan dhaqaatiirta hadday ilaahay u niyoodaan maalin la arko intaas oo qof ay badbaadishaan ilaaha badbaadiyey laakiin ay dawadooda qoraan soo maahan camal wanaagsan oo waxay haystaan aan haddii alla kuu roon yahay tirtir lahayn camal wanaagsan oo tirtir lahayn ay haystaan gurigaas ninkii wax ku bixiyaa wuxuu ogaanayaa inay sadaqo jaariya ay tahay sadaqo jaariya inuu yahay bal wax kale inta daydo meydka lagu dhaqo ajarka laga helo ilaa fardu kifaayo waaye meydka dhaqidiisu inay ajarkaas wax ku leeyihiin anigu saasaan qabaa culimmaduna waa ila qabtaa wax haddii alla kuu roon yahay ilaahay waxa uu ku siiyey nacfigana midda aad sadaqaysataa ugu fiican maxaa jira qur-aanka haddii alla kuu roon yahay ilaahay baa faaniyey midda aad caloosha ku shubto masqushaad geeyihii midda aad ka tagto oo la yidhaah tarikada
waxaa dhici karta in qamro iyo jaad iyo lagu cuno marka aduu ka tagto middan way sii kore ilaa boqolaafkeed ay iskorayda maxaa jira ilaahay wuxuu sheegay xabad dhulka lagu riday oo 7 dhashay sabuul oo 7dii sabuulkiiba 100 uu yahay lixfeen intay ka qabto yaa aan rabbi sheegay waa waxa la sadaqeeyo waaye soo maahan guryo badan oo u kireysto qofku haa intaasuu leeyahay intaasaa u kiraysan intaasoo hadeelkaanu leeyahay waxaa ka fiican midda lixfeynka oo aakhire aad ku kafakaydo oo haddii alla kuuro iskor saarmaydo oo teer iyo markii qiyaamo la gaaro haddii alla kuuro yahay maaragtay iskoreyda taasaa ka fiican rasuulkana mar asxaabtu su'aashay salawaatullaahi wasalaamuhu wuxuu yidhi rasuulku ma su'aalina asagaa wuxuu yidhi rasuulkaa su'aalay wixiina iyo waxa islaameed kaad jeceshihiin yaa rasuulallaahi waxa yagaan jecelnahay ale mayu ma jeclidin wixiina haya noo jecel yaa rasuulallaahi wuxuu yidhi wixiina waxa waxay aad sadaqaysataan waxa kale ma lihidin idinku bahda warbaahinta qaas ahaan goobjoog maanta waxaan isugu nimid kulan bulshaweynta reer baxdo oo la dhaqaatiir oo la mucallimiin oo la barofesoro oo la ardo inaan ka wada qayb qaadano kana diskas garayno kana doodno bulshada reer baxdo waxay u baahan tahay sida loo wajihi karo wixii la soo qabta meeshay marayaan waxaan si fiican oo door muhiim ah naga qaatay dhaqaatiirka oo memberka ugu culusayo ku casuuno maanta qaasaan ilaahay fadligiisa waxay noo suurto galay inaan isula meen dhigna si wanaagsan oo horumarka iyo mustaqbalka dhow iyo kan fog intaba aan ka diskas garaynay meel wanaagsan ugu dhamaatay xiriirkii dhalinyarada ganacsatada culimada dhaqaatiirta guud ahaan bahda waxbarashada inaan degmadaas sida loo horumari lahay kulligeen diiradda saarnay isla ogolaanay sidaa darteedna qof kasta oo bulshaweynta reer baxda ah oo codkayga maqlaya ama wajiyadeena garanaya waxaan ugu baaqaynaa dal iyo dibad meeshuu joogo inuu ka qayb qaato horumarka ka bilowday reer baxdo ay isu taageen gobol degmo iyo tuulo guud ahaan geyiga Soomaaliya gaar ahaanna galmudug state degmada baxdo qurba joogta reer baxdo Afrika Asia Aasiya America codkayaga insha Allah gaari doonana waxaan leenahay walaalayaal ku daysada kana qayb qaata xubinna ka noqda naftiina ka bilaaba waa walaalihiin wax loo qabanayo waa dadkiin wax loo qabanayo waa hooyooyinkiin waa walaalihiin waa aabayaashiin insha Allah tacaala codkeenu wuxuu yahay guusha muuqata iyo horumarka inoo muuqda inaan kulligeen focus ka wada saarno aan ka wada qayb qaadano codka inta kale insha Allah tacaala sidaas aan ku soo koobaynaa guudi afgarad baan ugu dhamaatay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaan magacaygu waa Asmaa Cabdi Kulane ka tirsan ururka dhalinyarada BWL Baxdo Youth League kulanka maanta aan ku qabanay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Ramada wuxuu ku saabsanaa kulan la tashi aan la sameynay dhaqaatiirta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada ka soo jeeda oo maxaan ku raraa mas'uuliyadda ay saaran tahay kulanku wuxuu ku saabsanaa isbitaal weyn ee ka socda maxaan ku raraa degmada Baxdo sidii tara lagu weydii lahaa dadka maxaan ku raraa dhaqaatiirta oo eelku ah runtii dhaqaatiir aad iyo aad u fara badan yaa ka soo qayb gashay waxaan ku iraahdaa noo ishaarin waxyaalo kala duwan oo ku saabsan isbitaalka ururka kulanka waxaa soo qabanqaabiyey dhalinyarada ka soo jeeda degmada Baxdo iyo degmada hoos yimaada ee BWL runtii aad iyo aad biyoon u mar dhalay waxaan insha Allah tacaala ilaahay ka rajeynaynaa in wax isbitaalka wax tara dhismihiisa ka qayb qaata hadduu yahay ka shaqayntiisa iyo maxaan ku raraa sii wadidiisa iyo dhismihiisa inay insha Allah tacaala ka soo bixi doonaan dhaqaatiirtana si fiican baa maxaan ku yiraahdaa ugu bogaadinayna sidoo kale dhammaan dhalinyaradii iyo hooyooyinkii ganacsadii barnaamijkan intaan ku soo guda jirtana waan runtii u mahad celinaynaa ururka dhalinyarada BWL waxaan leenahay insha Allah tacaala jir oo joog shaqadan awal baad idinka soo bilowdeen haddana adinka wadan berrina adinka idin sugaysa marka insha Allah tacaala waxaan leeyahay han iyo hawl ururka dhalinyarada Baxdo Youth League